بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إسلامي داود يعني كسر هذا مو قال كلو عشب فضلا ديت عمر كوري زاك عسب وقنيس أكان سبسكرايب صار لايك أنا كي لايك وحولي ساعد إن يوتيوب بدل وجرسي تذكر أنت من قال كمان أن صوت من عم سيد تترجع كوارع عن صوت كهلين محربة إن أروح كاتب جي هدي أدربت إن مقال لا على هذا أما موضوع ولا على هذا أما إن لقى هذا أدربت كومنتي وصور sidee saan kale aa u sameyn karaa ii sheeg aad weyn waa ka soo garbaxay insha Allah maanta mawduucu wuxuu ku saabsan yahay sida gabadh aad hadda isbarateen loo soo jiitaa mawduucu horna wuxuu ahay sidee loo soo jiitaa qofkaasi jeeda waxaan u maleeyaa inaad wax ka faa'iido doontid babaqda badan kugu yaray mar rabo daawasho wacan waxaad isbarateen gabar ama xitaa muddo istaqaanin waxaadna rabtaa inay ka hesho ama ku jeclaataba ha ka baqin saaxiib anaa ku joogo kulana wadaagi doono habab aad gabadhaas ku soo xirgeliso laakiin ka hor inta aan bilaabin waxaan jeclaan lahaa inaan mid ku dhaho marnaba ha u bedelin shakhsiyadaada ama qofka aad tahay si aad qof isku jeclaysiiso waayo qofka saxda ah waa kan kugu jeclaan doona kuguna aqbali doona qofnimadaada Okay, kuwani waa habab iyo talooyin aad raaci karto si aad gabadhaas aad ka heshay u soo jiidato. Number 1, saaxiib la noqo. Waan ogahay uma baahnid in saaxiib ama walaal laga dhigto, laakiin inaad gabadha u noqoto saaxiib dhow waa wax aad u fiican. Saaxiib u noqo haddana u muuji inaad rabto ayada. Ha ogaato inaad saaxiibkeeda tahay, haddana mararka qaar la haasaw ayada. saaxiibka fiican ay rabtana waa kan ay aamini karto la kaftami karto waqtigay doonto soo wici karto wax kastana u sheegi karto waajib ma ahan intaas oo dhan inay ka hesho adiga balse u noqo saaxiibkan ugu fiican ee aad u noqon karto ayada. Number 2, weydii su'aalo badan qofta. waa wax fudud inaad gabar su'aal weydiiso balse badankooda wiilasha sidaas ma sameeyaan. gabdhuhu way jecel yihiin inay maanta oo dhan hadlaan tan kale aad ay u jecel yihiin inay naftooda ka hadlaan haddii aad iska dhageysan karto waxay kuu sheegto su'aalana weydiin karto waxaad tahay lama helaankeeda isku day inaad xiisayso wax kastoo ay kuu sheegto waxaad noqon doontaa qof ay jeclaato. Number 3, tusi inaad xiiso badan u qabto laakiin ha ka daba cararin ayada. waxaan ka wadaa adiga oon ka badbadin shukaanso ayada tusi inaad rabto ayada haddana shaki ka geli ha isweydiiso sababta aadan wiilasha kale oo kale u dhahayn waan ka helay quruxay waan ku baahanahay maxaad leedahay iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Number 4, weydiiso inay ku caawiso. fikrad in lagu siiyo haddii aad rabto ayada ka bilow oo weydii waxay kugula talin lahayd ama hadday jiraan waxay ayada jeceshahay ama ku fiican tahay amaba ay awoodo inay ku samayso adiga weydii inay kugu caawiso waxaas. tani waxay qoftii tusin doontaa inaad in badan ku kalsoon tahay fikradeeda ama caawinteedana ay muhiim ku tahay adiga. laakiin iska jir inaad weydiisato waxaysan ku samayn karin adiga ama waxay dhibsan karto haddii kale waxaa kaa lumi doontaa halkii fursad ee aad haysatay. Number 5, ahaw qofka aad tahay. haddii aad gabadhan xiriir la yeelato waxay arki doontaa wanaagaaga iyo xumaantaadaba marka haddii xiriirkiina ka hor aad ayada been ku soo xirigelisay qof aadan ahaynna iska dhigtay waqti yar kadib way kaa tagi doontaa ama qoftii waad weyn doontaa. soo sirtu waxay tahay inaad ahaato qofka aad tahay hadday gabadha tahayna tii adiga kugu saxda ahayd sida aad tahay ayay kugu qaadan doontaa haddii kalena mar waliba waxaad heli kartaa mid ayada ka fiican oo qalbigaaga u qalan. haddii aad muuqaalka jabdigan ku fiirsatay haddii aad ka heshay like saar haddii aad nagu cusubtahay inaad haddii kuwa soo boqoto janalka aad aragtay subscribe garay hana ka ilaawina comment ku soo baxday wixii fikradaada inoo soo sheegtay insha Allah. si kasta aad kuma sidii daawasho muuqaalka daawatay insha Allah dhamaantii waxaan rajaynayaa farxad bas barwaaqo reereen amdaan ayaa subaxna ballan muuqaalkan insha Allah. Bye bye.